2014 wiil yar oo 2 jir ah ayaa lagu arkay cudurkan. Dadku ma aysan aqoonsanin. Wiilkii ayaa maalmo kadib u geeriyooday cudurka Ebola. Dhammaan hooyadii, walaalihii iyo ehelkii iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay aaska ayaa iyaguna cudur ka qaaday. Sidoo kale, dad xanuunsan ayaa u safray wadamada Liberia iyo Sierra Leone. Halka uu ka bilowday oo ahaa Guinea ayuu aad ugu sii faafay. Waxa uu geeriyooday dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal aad u badan. wuxuuna ku faafayay si degdeg ah. Wuxuu noqday masiibo caalami ah. Ugu dambeyn, cudurkii olole caafimaad oo ballaaran oo la sameeyay ayaa lagu guuleystay in la aqoonsado iyo sidoo kale in la xakameeyo. Cudurka Ebola ayaa dunida 10 lama ilaawaana baray. Waxa uu geeriyootay in ka badan 11,000. Cudurka Ebola ayaa noqday masiibadii ugu weyneed ee caafimaad ee dhacday qarnigan. Cudurka Ebola waxaa sababay virus. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.